بسم الله الرحمن الرحيم إذا لهانتين بداوضة يا الملك استواد نقد داون إنسان دافها الدنيا واحد كسر دواتان مركلة يولي ببرنامج كي دعوين كلاياب كلها التلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي لان برنامج كدعوين كتطبيقات كني وحنيدكوا هيا حمنا عجايب بدن حمناها كسر قادم دونو عاد كداون دونتان هدي أن صدق كميدا أن وحدي كسي تابتو أن يدي شيء أيا وحكم النقد دونا nin isagu la gubi doono oo aan gubitaankaasi waxba ku noqon doonin waxa kaloon daawadayaal idii hayaa nin u dhashay wadankaasi Mareykanka oo raba isna in uu indhihiisa dibadda u soo saaro oo qadar waqtiya ay gabigooduba dibadda taagnaadaan waxa kaloon idii hayaa oo barnaamijka ku soo qaadan doona nin labadiisa si gacmood ku jajabin doona blockyo labana xubnahaas iyo waliba xubno kale oo aad u xiiso badan oo idin raali gelin doona ayaan daawadayaal idinku haya barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale ee telefishinka qaranka ee ku soo dhawaada aan idin soo qabto xubinta ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka iyo toddobaadkani waxaynu ku soo qaadan doonaa nin u dhashay wadankaasi Talyaaniga oo raba in uu la gubo oo uu muddo 3 minida gudaheed istuudiyaha dhexdiisa oo ku dhex wareego isaga oo dabkaasi ka ololaya bal ninkaasi iyo isku daygiisaasi uu ku rabo in isagoo gubanaya uu 3 minid istuudiyahaasi ku dhex wareego ayaynu eegi doonaa inuu dabkaasi wax ka soo gaaraan iyo in kale daawasho wanaagsan dacdadan oo ah mid aad u khatar badan ayaa waxaynu ku eegi doonaa ninkan oo u dhashay wadankaasi Talyaaniga ayaa waxa uu isku dayayaa inuu buugan dhacdooyinka ugu la yaabka badan in uu kaga qayb galo in uu jirkiisa uu gubo muddo dhan 3 minidna uu isagoo ololaya uu dhex meeraysto istuudiyahan dhexdiisa daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka ay ka arkaan halkaniye waxaynu eegi doonaa ninkan u dhashay wadankaasi Talyaaniga iyo isku daygiisani in uu u suuro galo oo uu 3 minid ku dhameystiro isagoo dabkaasi ka ololaya in uu dhex meeraysto istuudiyaha dhexdiisa dhacdadan iyo ninkaasina daawasho wanaagsan È partito, tra pochi secondi sarà un uomo torcia. Ted è costretto a camminare. Senti il calore che si sente già da qui? Assolutamente, noi siamo in basi, sentiamo questo calore, attorno a noi la temperatura si è alzata, deve per forza camminare. Una situazione quindi assolutamente sfavorevole, camminare per ridurre un po' di temperatura. Vedete come cambia rapidamente la direzione, a volte cammina all'indietro. La moglie intanto gli ha detto di alzare le braccia. Sì, perché altrimenti in quella zona avrebbe una sovrapposizione di fiamma, quindi una situazione di calore ancora più alta. Una seconda situazione sfavorevolissima è quella della respirazione. Il fuoco brucia perché consuma ossigeno, quindi l'aria che sta ispirando in quel momento è molto povera di ossigeno, quindi è una situazione ulteriormente sfavorevole. Intanto c'è un suo collaboratore che gli dà i tempi al megafono. Indicano i tempi e la direzione che deve seguire, perché spesso non riesce a vedere. Certo. Quanto è passato, Marco? È passato 1 minuto e 2 secondi. E lui deve superare i 2 minuti e mezzo? 2 minuti e 38. sidaynu arkayno wali waxa uu ku guda jiraa in uu isaga oo jirkiisu gubanayo uu dhex meeraysto istuudiyahan wali sana waxba kuma uu noqon bal waxaynu eegi doonaa gunaanadka tutti gli strumenti le pistole di misurazione della temperatura vanno a fondo scala misurando 700 gradi centigradi quindi una temperatura superiore. Si è bruciata tutta la tuta, vedi che lascia pezzi di stoffa. Sono 4 strati di stoffa e sotto questo gel ignifugo, questo gel protettivo. Non sono assolutamente tutte create appositamente per evitare che il fuoco possa arrivare alla pelle. Quanto siamo, Marco? Sotto questi vestiti c'è del gel. 1 minuto e 45 secondi. Manca meno di 1 minuto. È davvero difficile controllare una Allora situazione. arrivano in faccia, allora cambia direzione. Quando le fiamme gli raggiungono il viso lui si gira. Sì.
Considerate che 2 quando le minutes, gli hanno appena dato 2 minuti. 2 minuti, quando le fiamme arrivano al viso, lì diventa molto difficile poter respirare. Vedete come si consumano questi vestiti che sta portando? Addirittura corre, si vede che sta cominciando a scottare. Inizia a raffreddare, Gli hanno viene spruzzato addosso altro carburante? Sì, altro carburante. Cammina verso di noi, sentite il calore che arriva, guarda come si consumano questi vestiti. Mamma mia. Sono brandelli di tessuto, veramente bruciato. 2:30, quindi pochi secondi ancora, vedete come sta in questo momento vicino alla piscina. Sì, la piscina dove si butterà per spegnere il fuoco quando non ne potrà più. 2:45, Ha già superato il suo record quindi. anche accelera, corre, Eccolo. la parte più difficile è proprio 3 minuti, è arrivato a 3 minuti del bachelor. La moglie l'ha chiamato, piscina. Eccolo, si è buttato nella piscina. Ok? Ecco Ted. Ted ce l'ha fatta, Ted. Tutto ok? Ted vieni con me in studio. Come with me. In studio perché giustamente deve essere fatto da un grandissimo applauso. Perfect. And this one. ninkan u dhashay waddankaasi talyaaniga ayaa sidaasi ku galay buugga lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajaa'ibka ah isagoo 3 minid ee loogu talagalay dhammaystiray dabkaasina aan wax dhibaatihii ka soo gaadhin sidaasna waxa uu ku mutaystay abaalmarinta laga helo buuggan caalamiga ah ee Juniors World Record. aynu intaasi kaga nimaadno dhacdada ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaabka leh daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka ay ka daawadaan shaashadaha telefishanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland. dhacdada labaad ee idin soo qaban doono ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa nin u dhashay waddankaasi Mareykanka oo isna raba inuu isku dayo oo buuggan World Juniors Record-ka uu kaga qayb galo in uu indhihiisa labadiisa indhood uu dibadda u soo saaro qadar minida ah ama sakan ahna uu ku hayo. haddaba ninkan ayaa waxa laga rabaa inay indhihiisu dibadda taagnaadaan muddo 34 ilbiriqsi ama sakan oo aan mar quran libinsan. bal waxaynu eegi doonaa ninkaasi u dhashay waddankaasi Mareykanka isku daygiisana inuu ku guuleysto oo uu ku helo abaalmarinta ay bixiso buuggan Juniors World Record-ka ee daawasho wanaagsan. ninkan u dhashay waddankaasi Mareykanka ayaa raba in uu buugga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan inuu ku soo bandhigo in uu indhihiisa dibadda u soo saaro. dhacdadan oo ah mid aad u cajiib badan ayaa bal waxaynu eegi doonaa ninkan u dhashay waddankaasi Mareykanka isku daygiisani in uu u suuro galo. ninkan ayaa haddaba dadka indheeya Juniors World Record-ku waxay ka rabaan in uu muddo 34 ilbiriqsi uu indhihiisaasi ay ahaadaan kuwa dibadda taagan. bal waxaynu eegi doonaa isku dayga ninkan iyo 34kaasi ilbiriqsi ee laga rabo in ay indhihiisu dibadda joogaan iyo waliba in uu ku celiyo labadaba ee daawasho wanaagsan. I'll go 3, 2, 1, go, right? Okay, 3, 2, 1, go! Ten. 20. 30. 1, 2, 3, 4. È già record. 40 secondi. Sono rientrati al 43esimo secondo. Veramente io non ho parole.
La medaglia, non mi guardare. La medaglia, possiamo? Barbara, questo Ah, sono io? è per te. È entrato nel Bravo Guinness. Filippo. Complimenti. No! No! Non lo devi fare! ninkan u dhashay waddankaasi maraykanka ayaa sidaasi ku galay buugga lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha mucjisada ah kadib markii uu indhihiisa u soo saaray dibadda wakhti gaadhaya 43 ilbiriqsi wakhtiga laga doonayeyna uu ahaa 34 ilbiriqsi sidaasna waxa uu ku qoray buugga lagu qoro dadka la yimaada mucjisooyinka la yaabka ah. Bravo Filippo. Complimenti. No! No! Non lo devi fare! markan waxaan idii hayaa daawadayaal dhacdo aad u khatar badan isla markaana aad u xiiso badan dhacdada aan idii soo qabanaya ayaa waxay tahay nin u dhashay waddankaasi China oo raba inuu isku dayo in uu intuu meel dheer iska soo tuuro dabadeed uu biiteeyo saaxiibkiiyo meel kaloo dheer isna soo taagan uu gacmihiisa intuu qabsado haddana dib ugu noqdo halkii uu ka soo biiteynayay dhacdadani aad bay u khatar badan tahay bal daawadayaal waxaynu eegi doonaa isku dayga ninkaasi u dhashay waddankaasi China in uu ku guuleysto ee daawasho wanaagsan ninkan isku daygiisu uu aad ka u khatarta badan yahay ayaanu eegi doonaa ninkani waxa uu isku dayayaa in uu meeshan isagoo saaran inta uu xarigani soo raaco in uu ninka kale inta uu beetiyeeyo xarigaasi inta uu sii daayo inuu ninka kale gacmihiisa soo qabsado isla marhaantaana haddana uu dib ugu noqdo xarigii uu markii hore ka yimi bal isku dayga ninkan u dhashay waddankaasi China oo aad u khatar badan ayaynu eegi doonaa ee daawasho wanaagsan.这可能不包括在我们这个要求之内，但是他完美的完成了任务。我们要为他颁发证书和奖牌。首先颁发的是吉尼斯世界纪录证书。sidaynu arkayna daawadayaal ninkaasi waxa uu ku guuleystay dhacdadaasi aadka u khatarta badnayd isaga oo ka dhabeeyay himiladiisii ahayd in uu xarigaasi intuu iska soo tuuro uu dabadeed saaxiibkiisii kale halkaasi ka soo laabdaaday uu gacmihiisa qabsado oo uu dib haddana ugu noqdo xarigii uu ka yimi sidaasna waxa uu ku galay oo laga diiwaangeliyey buugga lagu qoro dadka la yimaada dhacdooyinka la yaabka leh 为他戴上金灿灿的奖牌。哇！ sidaynu arkaynay ninkaasi waxa uu ku guuleystay dhacdadaasi cajaa'ibka badnayd isla mar ahaantaasina ahayd mid aad u khatar badan aynu intaasi kaga nimaadno halkaad barnaamijkan dhacdooyinka ka daawanaysaan waa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland daawadayaal wixii dhacdo ah ee ku saabsan ama aad aysaan ee dalka gudihiisa aad ku haysaan waa noo soo gudbin kartaan wixii kale dhacdooyin ah ee ka dhacay dalka dibadiisana waxaad noogu soo gudbin kartaan ciwaanada shaashada idinka muuqda markan waxaanu eegi doonaa oo aynu soo qaadan doonaa nin u dhashay waddankaasi Turkiga oo isna raba in uu World Guinness Record-ka in uu kaga qayb qaato oo isku dayo inuu labadiisaasi gacmood ku burburiyo blookyo labana ah oo isku xidhan bloogiibana uu ka kooban yahay 10 xabadood oo laban ah waxaan u rabaa inuu feer kaga dhex saaro oo ku burburiyo bloogyadaasi labanada ah bal ninkaasi u dhashay waddankaasi Turkiga isku daygiisana ma u suuroobi doonaa waxaynu eegi doonaa inta laban ee uu labadiisaasi gacmood ku jabiyo ee daawasho wanaagsan dhacdadan iyo waddankaasi Talyaanigana waxaynu ku eegaynaa ninka raba inuu gacmihiisa ku jajabiyo blookyada labanada ah ee isdul saaran oo bloogiiba uu dhan yahay 10 xabadood oo laban ah oo isdul saaran bal ninkan iyo isku daygiisani ah inuu gacmihiisa ku jajabiyo ayaa waxaynu eegi doonaa inta xabadood ee
inta uu ku guda jiray isku daygiisani uu gacmihiisa ku jajabiyo ee daawasho wanaagsan. 3, 2, 1, go! Ali è partito, guardate come spinge sulla colonna di mattoni, il pugno è portato verso il mattone con un movimento circolare attorno al pugno stesso. Sono delle vere e proprie trivelle islamiche che riescono a penetrare questa colonna per almeno altri 30-40 cm, non si fermano all'impatto sul primo mattone. Vediamo, sono 400 più o meno i mattoni abbattuti finora. Guardate la sequenza continua con uniformità, con continuità, questo è assolutamente importante. Siamo più o meno a 800 mattoni, poi saranno da contare. Guardate come salta, spinge con tutto il corpo, non è solo la mano, solo il braccio che entra. sidaynu arkayno wali waxa uu bartanka ugu jiraa inuu gacmihiisa ku jajabiyo labankan aadka u tirada badan bal aynu eegno inta laban ee uu ku jajabiyo iyo waliba inay wax dhibi ka soo gaaraan. Siamo alla fine, vedete come si interrompe il ritmo, la fluidità del movimento e siamo alla fine. Complimenti, grande Ali, grande. Ok, Ali ha terminato. Fantastico. Ali, prego, torniamo in studio. Vieni Ali. È veramente esausto dopo questa prova. Noi rientriamo in studio tra poco il nostro giudice. ninkan oo u dhashay wadankaasi Turkiga ayaa sidaas ku galay buugga lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajaa'ibka ah isaga oo gacmihiisa adeegsanayana waxa uu ku jajabiyay tiro laban ah oo gaaraya 61 block oo laban ah oo bloggiiba uu ka kooban yahay amaba inta isku xidhanba ay ka kooban tahay 10 xabadood oo isdul saaran sidaasna waxa uu ku galay World Juniors Record-ka. Ecco il momento della premiazione. Thank you. Merci. Ali, penso per te, nuovo. mar kale waxaynu daawadayaal soo qaadan doonaa inuu dhashay wadankaasi Mareykanka oo raba inuu gacmihiisa ku burburiyo daasado aad u arag oo ay sharaab ku jiraan. ninkan ayaa waxa laga rabaa muddo hal minida gudaheed in uu ku jajabiyo gacmihiisa daasado gaaraya 69 xabadood oo daasadahaasi sharaabku ku jiraan. bal isku dayga ninkan u dhashay wadankaasi Mareykanka ayaynu eegi doonaa ee daawasho wanaagsan. ninkan isku dayay dhacdana uu u dhashay wadankaasi Mareykanka ayaa waxa uu doonayaa inuu isku dayo oo uu kaga qayb qaato World Juniors Record-ka inuu gacantiisa uu ku burburiyo daasado ay sharaab ku jiraan. daasadahan ayaa ah kuwa aad u adag. haddaba ninkan waxa laga rabaa muddo hal minid ah in uu ku jabiyo oo daasadahaasi ku burburiyo 69 xabadood oo daasadahaasi kamida. bal waxaynu eegi doonaa daawadayaal ninkan inay dhacdadani u suurto gasho oo 69 kaasi xabadood gaarsiiyo iyo inuu gaarsiin waayo labadaba iyo waliba in uu dhaafiyo ee dhacdadan iyo wadankaasi China daawasho wanaagsan. For the record. 3, 2, 1, go. Oh! Wow! 啊！好厉害啊！完全是易如反掌嘛！加油加油加油，没问题！加油加油加油！哦，他非常认真啊，每一个都不放。sidaynu arkayno wali waxa uu ku guda jiraa inuu gacantiisa ku burburiyo daasadahan sharaabku ku jiraan. bal aynu eegno gunaanadka iyo natiijada halka uu gaarsiiyo. Okay, we want to know the result. The current record is 69. Today you achieved 74, so it's a brand new Guinness World Record. 成功了！哇，所以今天实际上他是自己开酒为自己庆祝啊，太棒了！哇 ，Congratulations！ 好了，各位朋友们，这一时刻谁见证？ ninkan u dhashay wadankaasi Mareykanka ayaa muddo hal minid ah gudaheed waxa uu ku burburiyay
daasado gaaraya 74 xabo isagoo dhaafiyay intii loogu talagalay oo ahayd 69 xabo sidaasna waxa uu ku galay buuga lagu qoro dadka la yimaada dhacdooyinka la yaab kale haddaanu intaasi kaga nimaadno ninkaasi waxa uu ku guuleystay inuu gacmihiisa ku burburiyo tiro daasada ah oo aad u badan isaga oo dhaafiyay daasadahaasi loogu talagalay aynu intaasi kaga nimaadno ninkaasi u dhashay wadankaasi Mareykanka dhacdadan markan idii soo qaban doono ayaa waxay tahay laba nin oo doonaya iyaguna inay buugan Juniors World Record-ka ay kaga qayb galaan in ay kubadda golfta amaba gacanta laga tuuro ay ka qabtaan meel gaaraysa 100 mitir waxaana la eegi doonaa muddo 1 minute ah 100 mitir inta kubadood ee labadaas nin ee midna kubadda uu soo tuurayo midna uu gacantiisa ku qabanayo ay ka qabtaan dhacdadan ayaynu eegi doonaa oo aynu fiirsan doonaa ee daawasho wanaagsan dhacdadan ayaa waxaanu ku eegi doonaa labada nin oo lagu kala magacaabo Simona and David Kos una dhashay wadankaasi Jarmalka ayaa waxay doonayaan inay buuga dhacdooyinka ee Juniors World Record-ka in ay kaga qayb galaan oo ay isku dayaan in 100 mitir meel gaaraysa oo ninka lagu magacaabo Simona uu ka qabto kubadda yar ee loo yaqaano golfta ama gacanta lagu qabto wala hadaba daawadayaal waxaynu eegi doonaa labada nin ee midina kubadda soo tuuraya midna uu qabanayo ee uu ka qabanayo 100 mitir meesha gaaraysa muddo 1 minute ah gudaheed inta xabadood ee uu gacantiisaasi ku qabto ee daawasho wanaagsan 3 2 1 go Los geht's in einer Minute 100 Meter Distanz und den ersten hat er nicht gefangen. Jetzt scheint zwischenzeitlich die Sonne. Das Wetter ist unberechenbar wie Sonja Zietlow auf der Aftershow-Party. Der erste ist gefangen. Man sieht, David hat Probleme mit dem Gegenlicht. Er muss in die Sonne. Er guckt genau in die Sonne rein. Aber er macht das gut. Auch gefangen. sidaynu arkayno weli waxa uu ku guda jiraa inuu gacantiisa ku qabto kubadahan yaryar ee loo yaqaano golfta bal aynu eegno inta uu gaarsiiyo Eine Minute haben Sie Zeit, müssen mindestens 5 Bälle gefangen haben. Waren es jetzt schon 5? Und da rennt er, komm. Er darf natürlich nicht über die Markierung drüber. 1 und los! 6-mal hat David einen von Klaus abgeschlagenen Golfball nur mit der Hand gefangen. Diese Leistung ist bislang einzigartig. Und wir haben den insgesamt 16. Weltrekord in Deutschland. Klasse! labada nin ee lagu kala magacaabo Simona and David Kos ayaa sidaas ku galay buuga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan waxaanay muddo 1 minute gudaheed ku qabteen 6 kubadood iyagoo ka qabtay masaafo gaaraysa 100 mitir isagoo ninkani ku qabanayay gacmihiisa sidaasna waxay ku galeen buuga lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajiibka ah 16. Weltrekord in Deutschland. Klasse! haddii aanu daawadayaal intaasi dhacdadaasi kaga nimaadno waxaynu soo gaarnay guntii gabagabadii iyo weliba gunaanadkii barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale barnaamijkan dhanka kamarada iyo lightinka waxaa inoogu sugnaayo inoo hagaayay cabdi cumar jibriil dhanka isku dabaridka soo diyaarinta iyo soo hadaynta barnaamijkuna waa anigoo jamaal axmed naasir ah barnaamijkan barnaamij lamida intaan iskugu iman doono is aragti maqal dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu